gudoomiye hore hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami haatan ka mid ah siyaasiyiinta madaxa bannaan ee dalka oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka caalamiga ah ee Star TV ayaa si faahfaahsan uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland iyo dib u dhaca doorashooyinka waxaana uu sheegay in ay mas'uuliyadeeda leedahay xukuumadda talada haysa dib u dhaca doorashooyinka ee muddo dhaafay siyaasi Cabdiraxmaan Cadami oo go'aankii golaha guurtida ee muddo kordhinta ay ugu sameeyeen xukuumadda madaxweyne Siinaayo ku tilmaamay go'aan aanay guurtidu u cuskan nidaamka sharci ee dalka u yaala isla markaasina aanay jirin duruufo iyo sababo amni darro iyo aafooyin dabiici ah oo dalka ka jira golaha guurtidu kordhiskooda waa inay ku saleeyaan qorshe hawleedka komishanka doorashooyinka qaranka ma aha xuduud malihi mas'uuliyad baa la rabaa anu waxaan qabaa golaha guurtidu waxa sameeyay mas'uuliyad darro حق يجا أولي شرعنا يجا أولي كردية لكن كرديس كواين تكسر هيسا ظروفته وين تكسر هيسا قرش هولاتك جدية سرع الدورشوين كقرك ما ها وان أنا شرع ولا هسا دونان يليه في هذا شرع ولا تونس أنا كردية مياه ذكرتها هذا ما ركز واحد كسر هين هيسا واقعية يه هوشة ورك بلانك أي سميين iyo waqtiga ay ku dhamaysan karaan technically farsamo ahaan gudiga doorashooyinka haday ku waxaan ku dhamaysanaynaa 12 bilood de guurtidu ma aha 3 sano kordhiyay gudoomiye hore hay'adda shaqaalaha Cabdiraxmaan Cadami mar wax laga weydiiyay farqiga u dhaxeeya xukuumadihii hore ee dalka ka soo taliyay iyo xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Axmed Siinaayo farqiga u dhaxeeya waxa uu ku tilmaamay xukuumadda madaxweyne Siinaayo hogaamiyo mid ka aradan haykalka iyo nidaamka dawladeed oo aan lahayn kala dambeyn iyo tanaasul ay u tanaasulaan marka khilaaf siyaasadeed yimaado axsaabta mucaaradka iyo shacbiga toona qodob bay ku kala duwan yihiin dawladihii hore iyo dawladdan dawladii hore muran waa jiray khilaafna wuu jiray dib u dhac doorashooyina qaarkood way jirtay laakiin xukuumaddani dawladaha hore laba kaga duwantay kow dawladaha hore waxay caam ku ahaayeen arrinku markuu meel adag yimaado dawladda tanaasuli jirtay waayo mas'uuliyadda mucaaradka saarani الدولة السعران باكبادن حكومة ده مركا ماملكا هايسا ترى جعنت كو هايسا مسؤوليات كبادن حسبية عيا يدا سعران مركا حكومة ده ورا واحد عام كو هاين تناسب بيسمين شري واحد كليك قد وانتهي أنا ساعة أركت ذا إذا دور الشدي وقتي طاير ياركاين دور الشوين كده بيود 20 لكن كنت تلقى حق حكومة ده ما يعني دولة دني واحد يكتب كنت تلقى إن أنا دور شذا قبل أي وقتها هل كاسلو كل دوين sidoo kale mar uu ka hadlayay doorashooyin in dalka laga qabto dhawaan waxa uu sheegay in dawladda haatan jirta aanay mar raba diyaar u ahayn sidii ay dalka doorasho uga dhici lahayd waxaana uu walaac ka muujiyay Cabdiraxmaan Cadami wadamada ka taageera Soomaaliland dhinaca deeqaha doorashooyinka sidii looga qaban lahaa iyo dimuqraadiyadda oo uu ku tilmaamay mid ay niyad jab kaga muujiyeen Maxamuud Jawhar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Hargeysa